ayaa dawladda Itoobiya waxa ay ku sheegtay in jadwalkeeda uu buuxo isla markaana haatan aysan qaabili karin wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Haddaba waxaynu eegi doonaa arintaasi ka cuurdaarashada dawladda Itoobiya oo siyaabo kala duwan dadku ay u dhigeen isla markaana ay uga hadleen maxaa ka dhalan kara maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa dhinaca iga fadhiya Jaamac Galad oo arrimahaasi wax ka weydiin doona 10 ama 12 daqiiqo ee foodin ugu soo hayay. Jaamac soo ما شاء الله هوري من برنامج وقلناه مدحوينا محمد مدحوينا حسن شيخ محمود مالمي soo dhaafay safaraayu waxa way ku bixinayay dalalka qaar kuwa dariska iyo kuwa kalaba safarkii lixaad buu ku tagi lahaa Itoobiya waa cudur daaratay sababaha iyo waan ka hadalnay laakiin hadda waxaan rabnaa bal Soomaaliya waxa la gudboon iyo arintani waxa ay maartay dawladda Soomaaliya ay uga dhigan tahay maxaa aan ku horeyna marka hore maxaa ka dhalan kara arintan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام يا جود هم أمد الصوماليات ملك كستيجوان بحال السلام الله عليكم إن واحد دلانية أصيب بوراني مشيره توبيا يعني قرشها iyo ujeedada iyo danta ay kale dahay waan dareemeynaa waan la fahmi karaa in marka si dhaba loo fiiriyana laba dawladood oo xiriirkoodu uu xumaaday siyaabaha iyo sababaha keeni kara waa in ay yihiin kuwa cad laakiin yaani aniga jeclow yaad moodaa hadda inay tahay waxaas Soomaalidu Itoobiya ma jeclaan karto ilaahay qof waa naga jeclaan karaa dhowr qof oo jeclaatay waa jiraan laakiin waxa hadda lagu jeclaadana ma haystaanba kamana muuqataba maartay bidhaan la jeclaan karo marka wax ka dhalan hayo oo hadda Soomaaliya ay u dhimayso ama wax dhibaato ah oo ay soo kordhinaysaa Itoobiya haba yaraatay ma jirto Itoobiya colkeedii iyo nabadeedu waa isku mid ol aad isogtihiin yaa ka fiican nabad maartay lagu hoos qariyo marka colka iyo nabadda Itoobiya sharkeeda iyo khayrkeeda labadaba waan naqaanaa sidaba khayrna ma balahaba mar hadayna khayr balahayn oo wax khayr oo laga filan karaaba uu sajirin oo aysan ahayn dal maxaan ku idhaahdaayo la fahmi karo oo isagiiba jira yaani waxa weeyaan wax hadda maartay ka dhalanayo islaamka ka dhalanayaan ma jiraan wixii hore u jiray baa jirahaya Itoobiya ahaanaysa Soomaaliya ahaanaysa wax kale oo isbedelahaya laakiin iyaga waxayna ahayn bayar iska dhaadhiciyeen waa maaragtay ilaahay amarkii maaragtay madaxa ka nool wali hadlahay weeyaan intii kale ka dhintay Itoobiya maxay iska dhigto aan ahayn Itoobiya dawlad bay ismoodaysaa dawladna ma aha dal bay ismoodaysaa dalna ma aha ayadii baan dhisnayn iyadii baa burbursan iyadii baa dagaalamaysa iyadii baa dab ku shidan yahay dabka iyada ku shidan maanta ha iska damiso waxay ismoodaysaa shalayto markii reer galbeedku ay garab taagnaayeen awoodda ay lahayd Soomaaliya ay burbursanayd 22 kooxood ee kala magacyada iyo ujeedooyinka ah ay isdhex yaacayeen Soomaalidu birta isla wada gaadaysay sidoo kale moodaysa maanta waxa jira Soomaaliya dhisan dawlad isku duuban meel ka soo wada jeeda inta ka dhimanna israaci doonta cadawgeedana garanaysa dawlad iyo hogaamiye bisil oo siyaasiya oo aan dana gaar laga fushan karinna oo garwadeen u yahay Itoobiyana waa taa gubanaysa Abiy Ahmed maanta halka meel oo xukumo waa deegaanka Soomaalida hal meel ah oo kale oo Itoobiya kamida oo warqad uu qoray ay ka soconayso ama amarkiisa uu ka shaqeynayaa ma jiro oo aan ka ahayn magaalada Jigjiga hadii taa aad hesho cid ugu diida ama cid igaga soo horjeesata أنا يارنا يخلط كذي يقف كذا ما أن تشجع هين وإثيوبيا اللي هذا وإثيوبيا كتيرتو أورميا وأورميا أمحارة وأمحارة تكري وتكري بنشانغول وبنشانغول جنبلا وجنبلا عنفر وعنفر سيدامو وسيدامو بنشانغول ونوال وماشي سوتشوغا لكن ماشي إثيوبيا وذلذا إثيوبيا محام كويل هذا أي كتلس إثيوبيا وديجان كسومالي ده هل كاسو واتاي تيمو marka wuxuu ku khaldayaa Muqdisho Ilaahay amarkii wata aad ma santahay sida ay sheegeen duldaarashooda waxay gadaal kaga dareen in hadda marka laga reebo inay mashquul yihiin oo ay buuxaan oo jadwalka buuxo madaxweynaha la siin doono fursad iyo waxa weeye
inuu booqasho ama safar ku tago dalka Itoobiya madaxweyne xasan isaga maxaa la gudboon oo arintan kala gudboon madaxweyne xasan waxa la gudboon wuxuu horta waa magac dawladeed bay wataan darisna waa leeyahay sideedabana shar iyo khayr midna hadda maxaan ku leeyahay Itoobiya Soomaaliya waxba kama bedeli karto markiisa dhab Allah hadlay weeyaan laakiin maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu halhayskiisii ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la ah oo wado goortii ay suuragal noqoto iyaga ay ka imaato ay caasimada u soo diraan kow in la isu tago Soomaaliland garan markii la soo tago inuu Itoobiya waxay yihiin si dhab ah ugu sheego ay isagana soo tago Soomaaliland garan maanta Itoobiyada jirta waa magac Itoobiya la yiraahdo yaa soo haray wax dawladnimo ah oo Itoobiya ka jirta haba yaraatee ma ay jirto wax qowmiyad ka hooseeya oo Itoobiya ka jira lama arko wax qowmiyad ka sareeya oo Itoobiya ka jiraahina ma jiraan qowmiyad walba iyada qowmiyadnimadeedii isku koobtay shar iyo khayr wax ay ku heshaba meesha Addis Ababa la yiraahdana hadda waxa laga dhigayaa caasimada deegaanka Oromada wad maqlaysaan filayaa haweeneyda caasimada maayirka ka ah Ababesh miyal waxba noocaas loogu yeeraa yaa loogu yeeraa luqadii Oromada laga hirgelinayaa iskuulaadka boorarka iyo waxyaabaha kale waxa lagu qorayaa luqadii afka Oromada lagu qorayaa dawladda deegaanka dawladda hoose ama ismaamulka magaalada Addis Ababa wuxuu ku shaqeynayaa luqadda Oromada kala iska arag waqoomiyadii Itoobiya way kala tashadeen iskumayna tashanin intii isku dan ahna dhinac haday rabtahay sula yaacdo qoomiyad ku dan ana ma jirto sidaas daraadeed ma jirto maanta wax Itoobiya la yiraahdo oo aan ka ahayn Abiy Ahmed ayaa Itoobiyadu ka bilaabataa kuna dhamaataa waxa soo raaca haday ka tagi weydo حسن مكنن حسن دمقه مكنن حسن يا سو راعه Soomaaliya garan waxa weeyaan marka laba qof dalka Soomaaliya loo duleyn mahayo Itoobiyana dalka Soomaaliya loo duleyn mahayo haday awood ugu badan yeelato adduunka Soomaaliya iyada oo burbursan iyo Itoobiya la dirirtay reeraa la diriray ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya xilligaas waad garanaysaa baan u malaynayaa muxuu ahaa Mala Zanaawi baarlamaanka Itoobiya wuxuu ku yiraahdaa anaga Soomaaliya islaama dirayna reer cayr la yiraahdo yaan la dagaalamaynaa shalay hadduu cayr la dagaalamahay maanta Soomaali oo midaysan maxad maray day xamar cayr ka soo eriyadeen ila isaga aynu yiri moogtahay Soomaali baa ka dagaalamaysa meesha laakiin isaga oo markaa hogaankii maxaakiimta islaamiga ah yaani oo ahaa rag maaragtay magacyo leh oo ma sha Allah mahada ka gaadhay Sheekh Xasan Daahir Aweys Sheekh Yusuf Siyaad Indha Cadde rag noocaas oo de adag oo rag de maaragtay diimeedna ah yaqaanana si la isaga dhacasho maxaan ku ilaahay cadawga yaa hogaaminayay Soomaali bay hogaaminayeen marka soo agar cayr kaliya meena hogaaminay cayr wuxuu kamid ahaa ama habar gidir waxay kamid ahayd dadkii ay hogaanka u ahaayeen taas waxay ku qasabtay ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalka Itoobiya soo markaa isagu isla Soomaalida qabiil baa looga faa'iideystaa qayb iyo xukunta iyo wuxuu anagu reer habargiir leeyahay gaar ahaan cayrka yaan la diriraynaa Soomaalida inteeda kale lama diray tii oo maanta midaysan oo meel ka soo wada jeeda oo isku xiran oo danaheeda fahmaysa oo dawladeedii dhisantay oo ciidankeedii dhisan yahay oo qalabaysan yahay oo si walba u habaysan oo u diyaarsan inta yar ka dhimanna oo alla soo dhameystiri doono yaa maanta diyaar idin ah sidaas daraadeed xoorba kuma qoysan Itoobiya daqsi garabka ka fuulay kama duwana hadii marka heshiisku dan u yahay iyada welcome baan leenahay ana marnaba dhimayno Itoobiya hal xumeeyo Itoobiya dal bay naga haysataa Itoobiya dad bay naga haysataa Itoobiya waxa ku maqan qaan badan baa ku maqan oo Soomaaliya leedahay oo ciida waligeed aan dhamaanaynin Soomaaliya garan tii haday hadana isku daydo in ay maxaa ku iyada oo maanta baqtiday in ay hadana noogu siiyar caga jugleyso hortiin baan baraarugnay baan leenahay hortiin ma toosnaa madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan leenahay shacabkaagaad wax ku tahay dalkaaga iyo dawladnimadaada aamin shacabka Soomaaliyeed waan huba intan yarta waxaan garuufa la yiraahdaa xagasha la yiraahdaa nin aan ruufku ugu tufay baa la yiri waxna kuma yeelin
colaadiisiina aragtay Ethiopia de intii hore u ogeydna way ogtahay intii kalena hadday ogaatay muhiimadu waan dareemi karnaa waxa yani heshiis la gashay bahalkii waa loo magacaabay ra'iisul wasaare misal loo magacaabay mahasalaad waa saddexda arrimood waxa ay diidayso saddexdaas ma aha hadii loo baahdo Sheekh Xasan Daahir baa hadda loo magacaabi taliyaha ciidanka xoogga dalka هذا ما صدق ولا وسو jeedin lahaa madaxweynaha waa ku guubaabin lahaa ma iyadu markii Itoobiya lagu xumaynayo maxaan naga galay Itoobiya anagu waxaan rabnaan u magacaabanayna cidaan rabba muwaadin Soomaali madaxweynaha Soomaaliya maanta haduu isu soo taagay Xasan Sheekh Maxamed mikriyaado Sheekh Xasan Daahir Uways xaq buu u leeyahay inuu qabto Soomaaliya garan dalka hadii la leeyahay dambi buu galay oo dad buu wax yeelayna de Soomaaliya oo dhan ba iswada dilaysa nin diin ku dagaalama iyo nin qabiil ku dagaalama iyo wixii ugu fiicnaa lagu dagaalami lahaa yuuba ku dagaalamahay isagu oo kalimatullah ah Soomaaliya garan waa bini aadan oo basharka wax waa ka dhici karaan oo khalad waa ka dhici karaa laakiin khaladaadka waa la wada galay waana laga toobad keenaa maanta Xasan Sheekh Daahir ayaaba ku haboonba talada dalka Soomaaliya saan dheerahay Xasan Sheekhow Sheekh Xasan uu wareejay shacabka Soomaaliyeed markii hore Itoobiya fobia ka qabay oo halkii la kala joogay la og yahay wixii soo dhaxmaray hadana dhacdada noocan oo kale taa hadda madaxweynaha Soomaaliyeed ay safarkii uu ku aadi lahaa la yiraahdo jadalka naga buuxa oo hadal hayn badan abuurtay shacabka Soomaaliyeed dareen inta lagu abuuraysa horta jadalka naga buuxada ma taqaanaa أنا والله قرحني Itoobiya lacag ma haysato wax diblomaasiyiin oo u joogana ma laha lacag ay ku washqo shilin lacag ma haysato mushaarkii ciidamada iyo kuwa shaqaalaha yaa maxaan weeyaan 8 bilood la soo dhaafay si toos ah loo bixinin Soomaaliya garan iyadii baa marka cirka iska haysa horta wax ku mashquulay waa maxay يعني مدحونا سيا خرج كيسة وتبع وحي مودها يوم بانو مالك إنه وحكره وليه هوتيل كان يبي حيا عن شهر أنا ما حنقول هذا تو إيه كان وروح موحي صور مو وتاع حتى وحي صور مع مسكوش يقول له هذه الله بعه هو وتاع عشان كيسة بس هو وتاع ها marka taa horta iyagu sheegi lahaa oo wax hadda idin ka baahan yahay ma jiro mashquul kan marka intaas yaan jeclayn ku dhaaf ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay in waxa la yiri nin hooyadii dilay ayadii hadhu ma jiidaan Itoobiya ninka wanaag ka raba isla way u wanaagsan tahay waxaan arkahay siyaasiyiin reer Puntland oo maaragtay ku tirsiisay in sidan la yeelo Itoobiya ahay tunka la soo saarto Itoobiya hadday cid wax tarayso jigjiga wax tari lahayd hadday cid wax uun tarayso Soomaaliya ri hadday dib leedahay baa la dabadeeda ka muuqan lahayd moogtay ku qarsan lahayd riyo ayada saas u dhaxso ma marka Itoobiya hadday cid wax tarayso iyada istari lahayd dhulkan Soomaaliyeed ay haysato waa sidii nabiyullaahi aadam maalinkii la abuuray uu ahaa weeyaan abaaruhu waxa yeelaan mooyaane waxbana laguma soo kordhiyo sidiisa un baa Ilaahay ku barakeeyay geeruna waa noo daaqaa Soomaaliya garan adduunkan iyo dunidan hormartay ee mashaariicaha iyo barnaamijyada iyo waxyaalaha badan laga maaragtay hirgelinayo deegaanka Soomaalida laamiga dheer ee jigjiga ka soo baxa ee ilaa iyo meelaha goday soo gaadha yaa ugu weyn mashaariicda ka hirgashay waxa kale waa wax Itoobiya ay danaheeda ku raadsanayso oo shidaalkan shilaabo meerihiisa ku yaal iyo wax la mid ah weeyaan oo iyadu ay danaheeda maaragtay ka dhex raadinayso marka Itoobiya wanaag ninkii ka filahayo horta jigjiga ka fiiri hadday jigjiga horu martay oo ay tahay magaalo dawladnimadeeda iyo maxaan ku yiraahdaa nidaamkeedu intuu horumariyay caasimad ah oo ay ka muuqato dawladnimo hadii ay tahay waa sax deegaanka Soomaalida kalena ay ka muuqato hadii marka laga yimaado jigjiga cid Soomaali oo kale habeen wax uun ay tarayso Somaliland bay wax tari lahayd oo wax kala ma aysan tarteene way aqoonsan lahayd ما قصنا صدّن سنة أو Somaliland أي Soomaaliya أنت ذاك أي كجو أنت يليه هو كجو أنا هاي إثيوبيا ولا لها يودل كنو جد بيلها مالك فرماتش يجيب هنقول لك مصبح هل كان يجري تكرار كا درب يقول ولا قبت إلهي هذا ما لها حنون هاي هذه يا تضبط يلا بعد سنة وإثيوبيا ولا لها هاي وحبي يسمونهم يا كدم بيسي
Soomaali garan waa hadii yani cid Soomaalida deegaanka ka baxsan oo ay wax un wanaaga u sameynayso dekada Berbera canshuur la'aan wax kala soo degaan dekada Berbera qayb bay ku yeesheen oo boqolkiiba intaas aad leedihiin baa la yiri oo wax kala soo degaan maalinkii farmaajo yimidna hangool baa yiri ku qabta waxaad uga baahnaydeen aan idin siinahaye maalinkii baa hangool dhab ku siiyeen Soomaali garan marka inaan noqono adoon aan aqli lahayn oo aan fakaraynin waa laga fiican yahay qofka bani aadamku in uu wax uun maaragtay tofiiriyo hadaad inagu aan nahay kuwa isnacab war kuwa inaga dhanba ina sin nacab baa jira oo sida inagu waxaan isku haynaa wax yar aan macna lahayn kursi kala riixasho iyo maalin baad ixagatay iyo waxyaalo noocaas aan isku haysanaa Hargeysa iyo waqooyi koonfur waxay isku haystaan dhibkaasad waa noo geysateen dhib joogta ah ku yaala kuwa dhibka shalay ku geystay iyagu way isu geysteen ma aha wax adiga gaar ku aha ma ahayn iyaga is wada gumaadahay oo maxaan ku rahaa system ba waxa keenay maanta waa laga heshiin karaa waa laga kala xal qaadan karaa wax walba inaga ina dhex mari kara laakiin cadawga bahdilan ee isagiiba baqtiya haya haysu sii duleynina inta Allah hadii aad wax isu duleynaysan bini aadan quman oo qaab laho ingiriiska uu ka mid yahay xitaa يا غازي كلا بني ادم سن موقتها كل لكن اسقي بدد iyo dugaag wuxuu hadaa dhahdo bini aadan ba tahay maxaa tahay hadaa aan garanaynin hadaa adoon u noqoto ka war ilaahi ma yaqaan kuma xidna maxaan ku wax uu garanaya male aqoon kuma dheera aqli kuma dheera cilmi kuma dheera maxaan ku dhaqaale kuma dheera intiiba adu ku hoos fadhiya hadana ilaahay amarkii adigu baa isbahdilo ilaahay inta adu bilidii uu ku siiyay iska qaaday umba adu hoos taagan tahay oo af ahmaar baa waxa la doonayaa in laga hadlo garow iyo Hargeysa iyo maxaan ku ilaahay to magaalooyinka Soomaalida Soomaaliya af ahmaar baa la isku darahayaa marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed dib intaad boorka isaga jabtaan waxa inaga dhexdeena ahaynoo dambeeyo maanta عدة حسن شيخ انت ان لا كشيكتا وعد قرنمada Soomaaliya ku soo duushay dawladnimada Soomaaliya iyo ku soo duushay sidaas daraad difaaca qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliya yaan loo kala haray aad ma santahay waa taageerada madaxweynaha waa taageerada qaranka Soomaaliyeed waa taageerada iyo muujinta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waana huba ummadda Soomaaliyeed sidii lagu yaqaanay markay xaaladdu heerkan oo kala gaadho ee daandaansi dibadda uu ku yimaado waa daandaansi madaxweynaha dal in la yiraahdo waa ka mashquulay waa daandaansi weeyaan iyo gardar Saciid jadalkii loo waayay loo helay ya Xasan Sheekh loo waayay madaxweynihii federaalka jamhuuriyadda madaxweyne maamul goboleedna waa loo helay wadaan daansi way marka waxa way gacan bir ah waa in laga hortago Soomaaliduna meel ay joogtaba wax yar ee iyada ka dhaxeeya inaga dhexdeena waa isu soo noqonaynaa wariganba waa isxaqxagan jirnay waan isxaqxaganaynaa laakiin horta aan kuwan aan u muujin wax iska celin kara lama rabo midnimo baa loo muujin Xasan Sheekh baa madaxweynaha naga u baalay ariga dhulba markii inta laga dhaho waxa way Itoobiya socotay hoostaada imaan وجماعة ومسيح داوديال أنت سيان كسو جبجبنا قلب كان تاني كلن دمنا بتجليو